وإذا السلام سومالي محمدي مeel kasta aad joogtaan waxaa idinka codsanayaa muuqaalkayga hadduu idin soo gaaro inaa ii sheer garaysaan koobi linkigana ii taabataan xaasidnimo ma fiicno koley muuqaalka waa daawanaysaani koobi linkigana ii taabta intaana gabadhaan iyo sheekadeeda marka hore u gudbin waxaan rabaa ninkan dad aqoon u leh oo noloshiisa ka sheekeynayay bal inta aan ogeyn wax yar inaan idinka sheego كل سومالي بان هاي وحدو دي قبيل أسوها ببعده هيسان على قبيل شيدام كيسبو كيالي نينكا waxa la yiri gabar buu muddo 12 sano qabay ilaahay awlaad ma kala siin reerkoodii baa soo baday waxa la yiri magaciisi naagta aan dhalayn ka dhaqaaji oo gabar yaro saas laba iyo hal wixii ilaahay ka siiyaba aad ka dhashid doono waxa la isoo nin shaqaysta oo waxa la nin aad u afgaabana oo waxa la nin wax bartay oo waxa la noloshiisa u kala kacsan tahay ayuu haba yimiyo Nairobi yimiyo waxa la dhag gabar buu isku feeray xaggaas uu tagay oo naagti uu noqday markuu qurbaan ku noqday baa naagti waxay tiri soo goorsatay magaciisa barakallah lakaaniga warqadeedaysi sida dad ogaal ay sheegayeen u garanaya warqadeedii buu siiyay wuxuu isleeyahay gabar yar bad soo goorsatay oo hadda saa kugu daadinaysa maxaad tan iyo nacnacdeeda ku falaysaa ma dhaleystaa gabadhii waxa la hafiyo balow bay tiri wax yar kadib oo nin bay goorsatay waxa la 3 wiilo cadcad ay saa uga soo tuurtay Allahu akbar ninkaani gabadhii markii uu Nairobi ugu yimi baa la yiri guursaday ayuu waxa la balaayo ka qaaday ninkaani waxa la wuu xanuunsaday hadduu xanuunsaday waxa la yiri waa isbaaray waa positive way fahmaysan muxuu yiri naag baa ku qaadsiisay adna qaadsi waxaad awoodid waxa la yiri uu soo baxayo Dubai buu yimiyo gabadhan sawirkeeda idin muuqdo ayuu guursaday 2008 waxay 2008 ninkan gabar iskaaya bartay familigiisa gabadhii waxay tiri hada iskaaya bartay ninkii nin maartay degdegsan nawanin rabeen hawl kala tuure ayuu ahaa u ekaabay tiri waan iskursanay bay tiri hadaan iskursanay waxay tiri 2 week kadib waan soo dhacay waan xanuunsaday ma orba tolo ma orba leedahay hada dhiig ka qaad inta ka qaad xagga bad ma leh khaldan waxay 3 bilood markay dhaqaatiirtu igu wareersan yihiin ayaana lagu yiri bay tiri xanuunkaas laga malaha wax kale laga baari maayo maanta de wax kale ka baarna garan maynee malaha waa xanuunkaas iska baar waxay timaan doonayn Dubai inaan isaga baaro oo sirtayda qof maartay wadanka jooga aan la wadaago maadaama waxay tiri de halkan hadii qofka laga helo xanuunka maartay خلاص nolosheedii iyo shaqadeedii wax walba maadaama gabar wax baratay reerkooda u shaqaysa walaalaheed wax ka soo korisay walaalaheed wax bartay familigeeda iyadu ay ku tirsan yihiin ahayd waxay tiri wadankii baa imay tiri Soomaaliya timi way isbaartay way iska heshay xanuunkii positive bay noqotay ninkii markii intay gabadha xanuunada iyo waxa ka dawar wareegaysay isagu ogaaday inay maartay qoftaan la soo galay ayuu ka siday adoo mar dambe uu yimi waxay tiri muddo iga meereysanayay bay tiri ugu dambeyn markay hesheen wuxuu yiri oo wada hadlaynaa oo wada xaajoonayna dhakhtarkana oo wada tageynaa don't worry waxaad samaysaa boorsadan iyo baasaboorkan qaado orod waxay tiri waan tagay waxay tiri ninkan baasaboorka loo dalbaday oo waaba dhaqaajiyay boorsadii baan baaray bay tiri mise dawadii xanuunkaaba ku jirta marka horna waa arki jiray tir dawadan isagoo cuna wuxuu yiri waa iska energy waxaas Allahu akbar maxaa dhacay marka waxay tiri muddo 15 sano miyaa 15 sano 16 sano hadda laga joogo dabcan 2008 muddo dhowr iyo 10 sano ninkii ma furin iduma soo noqon reerihiisii hadday tiri wiilkiina dhibaatada ay gaarsiiyeen waxa la yiri hooy magacaadiyay meelaha la aad waxa ka sheekeynaysa anagu ma naqaan adii ninkaaga idin qusaysa waxaas
meeshii gabarnimo dumarnimo iyadoo rabtay inay mustaqbal samaysato awlaad dhasho qoys ballaaran noqoto nolol iyo hami lahayd ayaa labada lugood la qabta tiri waa ka xunnahay wixii kugu dhacayna may helin aad baa uga xumahay wallahi alcadiim wax walbana waa qadar ilaahay wix kastoo ilaahay kuu qorana ma gafaysid Ridwaan Isaaq waa gabadhan marka wareystay markuu wareysiga ay bixisay oo baarti 1 iyo baarti 2 uu baxay Ridwaan Isaaq waa lala soo xiray waxa li nago ree hebela wiilkaygu yaa lafta geela badhaayahay baa xanuunka maya anagu waxa ma qabno laakiin gabadha ninkaas uu qabo isguursadeen wayna kala tageen laakiin anaga Ridwaan gabadhi buu u yeeray dib buu xanuunka uga baaray waa laga helayadii ninkiyo هذا يبا وحو soo wacay ama uu barnaamijkiisa kala soo qayb galay ninka la yiraahdo Cabdixafiid Maxamuud wareysi badan su'aalo badan waxyaalo badan ma jirinba ma jirin waxa dhacday marka in uu yiri warqadan waa kaasa aniga xanuunka ma qabo qarrac darig ina adeerow hadaadan xanuunka qabin oo adoonaysi inaad bari iska dhigtid oo adoonaysi inaad iska fogeysid hadii ay eetayo lagu eedaynay adoonaysi inaad iska fogeysid waxaad noo samaysaa tag dhakhtar bahalkan lagu baaro hada xanuunka iyo kan dumarku markay uur kale yihiin isaga baaraan waa seem xataa calaamadaha waa ka seem markii magaca ku qoran laga yimaado calaamadaha xataa waa ka seem adoo isbaaray sida gabadhii oo kale na soo tus aan ku quusanay oo samirnay oo ogaanay waxaan inay gabadhu qalad leedahay aad markaa noo qirtide laakiin adoona warqad yar inta taan noo soo dhigtay tan way cadaynta aniga xanuunka ma qabo yaa ku aaminay idku aaminaysa malaha iyo idka asmaxaysatoona Soomaali qabiil dhexda u soo xirta gabar baa ka soo hadashay gabadhi baa dhexda loo soo galay waxa la yiraahdaa anuu adeerkaya anuu hebelowya xamidii sheega adeerna maalinta yawmal qiyaamah kuma difaacayo qabrina kulama galayo dambigaagana kulama qaybsanayo kiisana la qaybsan maysid waxa loo baahan yahay in isku danqadaan waa dumar ina adeerna waxba kaama galin waraniga kan ila dhashay ilaahay kuma keenee kan ila dhashay hadduu noqon lahaa waxaan dhihi lahaa waryaa tag adaa khaladka iskale allah waa in adeer iyo qatataciya maxaa kay calooshayga la soo baxa hadduu ahaan lahaa ilaahay kuma keenee waxaan dhihi lahaa waryaa edab yeelo adiga gabadha ka khaldan waayo kor haween kaba isma dhaamaan ama yarow ama weynow ama saarabti noocaarta u ekow kor haween kaba isma dhaamaan inta in laag isma dooriyaan faanteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyadana maadaaba ay u egtaa qof ku samirtay xanuunka qof diini akhlaaq ay ka muuqato maadaaba ay tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala sabrkeedaas u samirtay inuu ilaahay uga dulqaado aamiin u soo dhaha isagu haddii uusan khaldanayn uusan khalad lahaynna inuu isa soo cadeeyo oo dhakhtarka uu soo duubo oo isa soo cadeeyo ayaan leenahay because ma rabnayna idna dulmiyo anigu ma rabo wabilaahi tawfiiq